sidoo kale eedeysanaha waxa inoo soo baxday in uu naftiye haligeeyahay ummadana uu haligo Cabdullaahi Cali Maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay Maxamed waxaa loo heystaa kamid ahaanshiyaha maleeshiyada Al-Shabaab iyo weerar isugu jira qaraxyo iyo rasaas ay ku harqiyeen xarun ku taal Gaalkacyo 26 bishii 11 2018 xaqiiska xeer ilaalinta oo codsaday wajigii kan ka horeeyay in la siiyo fursad ay ku dhameystiraan cadeymaha kiiskan ayaa maxkamadda la hor yimid afar marqaato oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo booliis ah oo qayb ka ahaa badbaadinta carruurta ku jirtay xarunta qorigii uu ku dagaalamay eedeysanaha baarihii kiiska waxaa sidoo kale maxkamadda lagu hor aqriyay qiraalka eedeysanaha xaqiiska ayaa intaasi kadib codsaday in la gabagabeeyay kiiska xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyntii maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada lagu soo eedeeyay sidaas darteed waxaa loo soo diray Gaalkacyo qansax dheer iyo Gaalkacyo ka isu soo maray ugu dambeyntii waxa uu laayay dad shacab ah waxa uu diray askari xoogga dalka oo ciidamadii gurmadka ku yimid ah sidaas darteed maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanaynaa in eedeysane Cabdullaahi lagu xukumo ciqaabta u qalanta ay qorayaan qodobada iyo aayaadkan ku soo eedeynay oo ah dil toogasho si mujtamaca intiisa kale ay uga badbaadaan sharta kuwa maqan ee hadda soo ay tashkiilinayaan shabaabkuna ay ugu tusaale qaataan qareenka eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto eedeysanaha oo xilligii uu ku biirayay Al-Shabaab uusan gaarin xilli uu kala doorto sax iyo qalad mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh Cabdullaahi Cali Aadan waa nin dhalinyaro ah waa nin la marin habaabiyay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa iyadoo fiirinayso qodobka 110aad ee awoodda garsooraha in ay u naxariisato Cabdullaahi Cali Aadan maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah ee la qalday maxkamaddana ay u dirto goobaha dhaqan celinta maxkamaddu waa mahadsantahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado qaatay dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysane Cabdullaahi Cali Aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa fadhigu inoo xiran yahay Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Gaalkacyo